السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحو وقتك السي قرابة وحالة سو قاري إن قبدي سفركي بابا مصطفى سرقال كتير سنة سفارة صوماليا سنتكي كون سيال بقول سديت ميدي مركا إيمن كانوا حالة سو قاري قبدي سفركيسا isagoo waqti wanaagsan nagula qaatay wadanka Qatar dalka caasimadiisa Doha caawan waxaan ma sha Allah waqti fiican ku qaadanay hotelka la yiraahdo La Siagle oo ku yaalo xaafadda Set dal magaalada Doha iminkana sidaad arkaysaan waa baba iyo Cornel askari oo meeshan shaa ku cawaaya waqti fiican ku qaadanaya aan ku tilmaami karo nooc kamid ah isagootinta maadaama habeen dambe ay tahay waqtiga uu madaarka tagi lahaa marka hadana ujeedaa shaahooda iska cabayaan wax ka hadlaysan ma lahan waxaan leeyahay baba aniga ka cabuud ahaan Cabdalla ahaan waxaan ku leeyahay safar salaama waxaan insha Allah rajaynaynaa sida adoo caafimaad qabo inaan noo soo laabato wadankaagi waaye wiilashan waa wiilashaadii waxaan kaloo ku leeyahay noogu salaan dadka u tagi doonto maamada iyo dhammaan ehelka iyo qaraabada waxaan ku leeyahay safar wanaagsan haddana waxaa meeshan lagu sii gudagalayaa waraysigii koobna la yeelnay baba iyo Cornel askari insha Allah habeen dambe kala tagi doona iyagoo waliba aad isugu xiisa qaba waxaan leenahay safar wanaagsan okay baba maadaama abisha barakeysan ee Ramadaan aan la soontay ka waran shucuurtaada sida waqtiga aad la qaadatay dhalinyarada qaabka soo dhaweynta lagu sameeyay iyo sida aad dareemayso bismillaahi raxmaani raxiim abdullaahi weyn aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kulliba aniga ramadaanka maalinta calaykum assalaam ramadaanka kowdii ayaan imaaday si fiican meeshaan lagu soo dhaweeyey asxaabtii dhalinyaradii Doha joogtay raggii aan garanayay waayadii safaaradda aniga aan joogi jiray si fiican maasha Allah tabaarakallah maxaa yeelay caawa waxaad arkaysaa waa habeenkii safarka waaye insha Allah taala habeen dambe aan waa bixi doona haddana waxaad arkaysaa anagoo meeshan aan isku joogno shaahi aan adeyn ayaa waxaa noogu yimid ninka Doha waqaabilsan qiimaadka iyo dadka imaanayaan ama Yurubiyaanka ka imaanayaan ama ilaahay idinkiisa kuwa gudaha oo wareysada ka qaado Cornel askari ayaa loo garanayaa ninkan waa kaas kolka wallahi aad baan ugu mahadceliyay maxaa yeelay caawa oo kale ka soo qaad dad badan oo aqoon-yahan ah oo mutacalimiin ah oo aniga weligay aan arkin qaar Canada ka yimaadeen qaar maxaan ku yiraahdaa oo halkan joogeen markii oo munaasabad aad iyo aad u fiican oo afraad fiican loo sameeyay baan arkay runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa insha Allah taala adinkeena haddaad noo imaadaan sidaas oo kale idin soo dhaweyn doonaa anna waxaan jecelahay haddii ilaahay idmo marmar oo kale waa idin soo booqanaya sababaha waxa weeyaan aniga dhulkan kuleelaha ayaan rabaa laakiin nasiibuna insha Allah taala aragti dambe haysanay adinkana khayr baan idin rajaynayaa waad ku daraysa adiga ku jirta okay Mr. askari sidee u aragtaa baba safarkiisa iyo maaragtay salaam baba insha Allah maatinka aad ugu faraxnay waxyaabo weyn naga caawisay Ramadaankii maadaama qabanayna Ramadan Cup-kii jaaliyadaha sportska naga qayb qaadatay hawsh dhinaca ka qaadatay maadaama aad wadanka joogi jirtay sideetanaadkii magaalada Doha ee magaalada tahay annaga aan dadka sagaashamaadkii yimid marka wax walba dhaxal moogtahay yani annaga xilligeena waajibka soo gudatina halkiis ka sii wadno ayaan maartay sii wadnay insha Allah taala safar salaam marka aad iyo aad maartay maatinkaada wax weyn iska bedelay dhalinyaradii yani isku dhiirigelin isku keenid yani maatinkaada faa'iido weyn oo aad oo antaasi aniga waxaad ii dheer isboortiga oo halkaan oo adinka aad joogtaan
oo maalin dhaweyd oo dhowr jeer aad iga marta qaateen kooxihii anigana halkaasaan ka wada laakiin kulli adiga dehnin mudana ayaa tahay oo waad og tahay oo wasaaradda isboortiga meel kasta joogaan sida ingiriiska kanada maxaan ku iraahdaa dhinaca carabta halkan aad joogtaan sacuudiga yaman masar aniga waa ka arki jiriyo meelo badan baa ka dhiibgeli jirta kolka ciyaarihii maalin dhaweedna adiga soo dhaweyseen aad baan yani aan ugu faraxsanay aad iyo aad baan ugu faraxsanay واجب واوي inaan gudano yani magacaas calankaas inaan meel walba geeno sumcaddii soomaalida aan kor u qaadno tusno adduunka inaan maarta la qaybsan karno waajib waa la saaray in la farayo ma adinka ciyaarihiina waan arkay halkan markaa aad joogteen yaa idin fangaraya walaalo airportkii maalin dhaweed aan arkay meeshii ciyaaraha laga qabanaayay raggii ay ka soo qaybgaleen dadweynihii meeshii wax ka dhacayay aniga aan arkay haddaad tahay oo mas-uuliyiinta ugu sarreeyaan ciyaartooyda halkaa ay ka dhacayaan dooha adiga yaa waa yaa idin fangaraya waxaa la fangareeyay dhammaan jaaliyadda dadka jaaliyadda khaasatan dadka dhalinyarada u badan shaqeys ayaa maarta nin walba isxil qaamay alxamdulilah qarash ugu filan waa keenay jaaliyadii isboortigii funaanadii maadina dawladda wax idinka yimaadaan maya dawladda soomaaliya wax nooga yimid mala ilaa adiga meel aad dhaafaysa ma lehe anaaba wax nooga yimid meel adiga aad dhaafaysa ma lehe ragga madaxtooyada soomaaliya waa ku xiran tahay halkan shuyuuqdii yoonay dadkii meesha dugaasooyin waa ku xiran tahay waa ku aqaanaa wax nooga yimid mala wixii yimid waaba maaragtay wax cadaan sida ku baxeen basiirkii yani in aan lacag timid lacag baxday yani lacag dhawaad ilaa 18 kun oo dollar yani wixii maaragtay la sheegay ma aqaan 18 kun oo dollar waxa aan ka bixiyay qalab aan soo galay aan maaragtay ka bixiyay maaragtay rentalkii baabuurtoodii exercise-kooda raashinkooda everything lacagdan ilaa iyo 100 kun ay idinka soo gashay baad yiri waa dadka waxa rab inay soconin يعني بقول كل دول ما عقلي قلاي ما عكس حركة أنا قبتي عيارتي قدام بيجي لا بقول كل ما ينك سوق شيء بالي أنا لا كاسي ما هنسى ما زين طبعا كل دول إيه جالي دروسي أنا بعكس عنتي توصل أنا جرو حن علي جالي علي دوكمنتي أنت كل واحد العكس هذه وأنا هذا كان أخذ واجب سؤال وفرح kolka aniga hadda tan aad ii wareysanaysa oo Belgium kiini ah aniga ilaahay mahadiisa hadda muddo soo dhisnaa ayaa meesha ciyaartooy aad iyo aad u fara badan ayaa meesha joogaan haddii ciyaartooydaasi aad ii weydiisiyo qaar ka mid ah magacyada ii sheeg aad leedahay ciyaartooy fara badan Belgium garoon weynaa ku yaala fangareen badanna waxaa fankana siiyaan dowladda Belgium baa siisay sida kan laajina waxaa ka mid ah ragga aad ii weydiinayso ciyaartooyda waxaa ka mid ah yuusuf gaab baa ka mid ah oo haddii la kala leeyahay meeshaas oo gudoomiyaha nin kale shacabo kor la yiraahdo baa shacabo kor gaab oo xamar ah baa ka mid ah nin Usmaan Baashi la yiraahdo baa ka mid ah nin kale Maxmuud Fagow la yiraahdo baa ka mid ah kuwa ugu daran waxaa ka mid ah war nin la yiraahdo Yuusuf Ali maya Yuusuf Ali baa nin Abdullaahi Xoog sida la yiraahdo nin Daadireed la yiraahdo nin Axmed Deeq la yiraahdo nin kale Afgaab la yiraahdo waxa kale ka khatarsan ragga kale nin Cabdiwadiid la yiraahdo oo loo og yahay nin kale oo la yiraahdo ma taqaana telefishinka ma arki waa ka arki jiray nin kale oo Dubai ayaad arki jirtay Dubai baaba dadka ay sheegaysa ma laacibiin hadda dheelaa mise laacibiintii hore cuslaata waa laacibiin hadda dheelo soo baahay waayo waxaanu hogaaminayaa nin la yiraahdo maxamuud agajalaf baanu hogaaminayaa waxaanu hogaaminayaa nin cabdirasaaq la yiraahdo heer boosaasa baanu hogaamiyaa ciyaartooy aad iyo aad kala duwan ay meesha ku soo وأنا هذا صبح هنا بوإيماننا إن شاء الله نسود دويننا إن شاء الله سفر السلام خير أكون جينا إن شاء الله مركا نتيجة كذي هذه أدبر ما سنتين كل بأن وعن سلام يا ردي صاحبي هاي إن مغنى عبد الله أو آلا بهرمود إن نتيجة كذي هاي إن عيارها هل كان أي كسودان دكتور
maxamed cabdisalaan ayaa ka mid ah mudane sheekh nuur baa ka mid ah mudane askari jiif baa ka mid ah mudane بدر bader agaasimaha xagga brotokoolka safaarada soomaaliyeed waxaa ka mid ah diibta maraakiibta ninkaa nooga qaabilsan axmed egjey baa ka mid ah raggii kale oo caawa dhabarey baa ka mid ah saaxiibkii dhabarey allah 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 salaan khaasa baad iigankaasiinaysaa taasina waxay ahayd gabagabadii iyo gunaanadkii macsalaameyntii baaba mustafa oo habeen daba safraya insha allah waa mahadsantiin dhammaan inta daawatay iyo inta daawan doontaba waxaan idin leenahay inagoo wada jirna sidaas iyo nabadgelyo kulanti wacan oo dambe oo xiise leh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.